Assalaamu calaykum saaxiibayaalow. Sheekadeenna maanta waxay ku saabsanaan doontaa gabadhan yar, hooyadeed iyo aabaheed oo ku nool tuulo. Gabadhan yar ayaa waxay ku lumi doontaa suuqa, waxayna ka lumi doontaa hooyadeed, iyadoo weliba hooyadeed la socota suuqa dhexdeeda ay si kedis ah inantan yar uga lumi doontaa hooyadeed. Waxaana halkaa isku waayi doona hooyadeed iyo inantan yari. Inantan yar halis ayay gelaysaa, waxaana heli doona nin tuuga oo kaxaysan doona inanta yari. Inkastoonan jeclayn inaan sheekada xagga hore idinka sii sheego, haddana waxaa wanaagsan inaan daawanno dhacdada meeshan iska dhacaysa. Gabadha hadda wuxuu ku dardaarayaa odaygani oo ah wiil odayga dhalay inanta yar in ay gabadhu ilaaliso oo ay ka ilaaliso tuugta suuqa jooga. Waxayna ku leedahay inanta yar anaa ilaalinaya, waana i raacaysaa. Hadda gabadhii yareed waa ay soo kaxaysatay gabadhii, waxayna u sii wadaa ilaa iyo suuqii si ay u raacdo oo ay ula soo adeegto hooyadeed. Gabadhan yari suuqa ma kala taqaano, oo xaafaddooda waxay yaallaan baadiyaha ama tuulada magaalada. Hadda waxay soo galeen suuqii oo waxaa wada socda gabadhii yareyd iyo hooyadeed. Waxayna tagayaan gudaha suuqa oo meel dad badan ay marayaan oo ay joogaan ay tahay. Gabadhan yari iyo hooyadeed waxay dhex marayaan hadda suuqii weynaa, waxayna isku dayayaan inay soo adeegtaan. Gabadhii yareyd waxay si kedis ah uga hadhay hooyadeed oo ay kaga luntay suuqa, waxaana ka hor yimid ninkani. Ninkani waa nin tuuga oo xada carruurta, kana ganacsada carruurta oo meelaha kasta la soo maray oo carruurta aan laga soo gaarin oo xada. Gabadhii yareed waxay ku tidhi, maxaad ahayd, xageed ka timid kuma garanaye. Waasuu ku yidhi, halkeed ka timid. Waxay ku tidhi, hooyaday ayaan ka lumay. Kadib intuu farxay ayuu ku yidhi, hooyada waan garanayaa, aniga ayaana kuu geynayay ee ha cabsoonin. Inantii yareyd waa ilmo yaroo naqan, run ayayna moodaysaa oo ninkan wuxuu doonayaa inuu ilmaha yar xado oo uu geysto meesha uu carruurta ku iibiyo. Inantii yareed waxay ku tidhi, ma hubtaa inaad hooyaday ii geynayso? Waasuu ku yidhi, haa, anaa kuu huba ee ina mari, aan hooyadaa ku geeya hadda ee. Inantii yar way iska rumaysatay, waxayna iska soo raacday odaygii. Waa nin tuuga ninkani, wuxuuna ugu sheekaynayaa been, wuxuuna ku leeyahay waxaan kuu geynayaa hooyadaa. Hadda waxa uu sii wadaa meel ka mid ah tuulada, waxaana halkaa ka dhici doonta qiso cajiib ah oo lama filaan ah. Gabadhii yareed hadda waxay la socotaa tuuggii oo sii wata meel bannaan. Odaygan waa odayga dhalay inanta yar, wuxuuna halkan iska socdaa si nasiiba, warna uma hayo. Wuxuuna ka yimid beertiisii, wuxuuna ku soo socdaa xagga gurigiisii. Odaygii wuxuu si kedis ah ula kulmay inantiisii yareyd oo uu nin kala wato oo tuug yahay. Kadib odaygu aad ayuu u xanaaqay, wuxuuna ku yidhi, inanta yar xageed ka keentay? Tuuggii hareeraha ayuu eegay, markaas ayuu yaabay. Markaasay ku tidhi tii yareyd, aabbo, isaga ayaa i waday, wuxuu igu yidhi hooyadaa ayaan kuu geynayaa. Kadib odaygii madaxa ayuu qabsaday, waana uu yaabay. Tii yarna wuxuu ku yidhi, soco halkaa istaag aduu. Kadib ninkii tuugga buu ku yidhi, inanta yar xageed ka soo kaxaysay? Kadib ninkii tuugga wuxuu yidhi, ma aanan soo kaxayn anigu, ee waxaan ku soo waday gurigiinna. Aakhir ninkii tuugga waa uu iska cararay ilaa iyo suuqii markii ay ku soo caddaatay beentii. Hadda waxaa guriga la keenay ilmihii yaraa oo aabaheed ayaa keenay. Hooyadeedna guriga ayay timiday iyadoo aan ilmihii yaraa wadanin oo aad u baqanaysay oo warwarsanayd. Odaygii halkan ayuu aad u xanaaqsan yahay, wuxuuna ku leeyahay, inanta yar halkeed kaga timid, halkeese kuugu dambaysay? Gabadhan waxay ku jawaabtaa malaha, waxayna leedahay, aniga iyadoo ila socota igu dambaysay, kadib suuqa ayaan ku kala lunnay, waanan waayay, hadda saas ayaan guriga ku imiday. Odaygu wuxuu leeyahay, ma sidaas ayaad ilmaha yar ku kaxaysatay? Soonigu ku lahaa iskaga tag ama iska daa, carruurta lama kaxaysto oo suuqa lama geeye. Kadib waxay ku tidhi, ma garanayo hadda wax saas u dhacday, laakiin uma noqon doono. Dulucda sheekada ayaa haddaba waxay tahay, carruurta yar markaad kaxaysanayso ama aad u socoto suuqa, waa inaad iska reebtaa ama aad u ilaalisaa oo aad gacanta haysaa. Haddii aad dhayalsato, si kedis ayayna u lumi karaan, waxaanad ku talagelin ayaana dhici doona. Hadda inantaa yari waxay ahayd mid ka mid ah carruurtii ku sigatay inuu qaato tuuggaasi. Haddaba carruurta markaad rabtiin
inaad ilaalisaan waa inaad guriga kaga sii tagtaan ama aad si aad u feejigan aad u ilaalisaan carruurta.